ururka haweenkii Hoodale ee fadhigiisu yahay Denmark oo u taagan caawimaada dadka jilicda sanle ayaa 6 guri ka dhisay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa isla markaana ay ugu tala galeen inay galaan dadka naafada ah. ururka Hoodale ayaa waxa ay soo wakiisheen Xaawa Cabdi Geed isla markaana booqatay goobihii laga dhisay guryahaasi loogu tala galay dadka naafada ah. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka dareen celiyay u mahad celiyay dadkii u soo dhisay guryahaasi qaar ka mid ah dadka naafada ah ee guryahaasi degan. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta waxaanu joognaa guri ka mid ah tabarucaadkii ay ururka Hoodale khayriga ay dadka docofada ah ay ugu deeqi jireen caadada u ahayd. gurigan aanu joogno waxa loo dhisay Cabdi Caydiid in la yiraahdo oo halkan ku arki doontaan. inta tiradooda guryo badan baanu dhisnay. maanta haddaanu ka gaari weynana maalin kale insha Allah soo duubi doonaa. waan u mahad celinayaa hablaha ururkayaga Hoodale ee khayrigan aniguna ka wakiilahay waayeelnimo iyo weyni ii soo wakiishay. ilaahay miisaanka xasanaadka hay noo saaro ururka Hoodale ee khayriga ah ee ka shaqeeya weligiiba dadka docofada ah. naxariis Ilaahay baa u naxariista. waan idin salaamayaa. وعلى عبد عيد إسماعيل وعلى عبد عيد إسماعيل أوركا هودي كوكيشة هاي حوا عبد جيد أي كوكيل تهاي مركا دوان مهد عليني إلهي مهدي وأقول كلام نقول شرنا وانسكا لبان نسكا هنا كايرنا وان هايستا مركا يحاسكي مركا taalkaygana dawaa aragtaan marka waxaan doonayaa waa idin mahadnaqayaa ilaahay miisaanka xasanaadka haydigu daro si weyn baan noogu taageerteen noo ururkaan noogu qabateen marka waan idin mahadnaqaynaa alxamdulillaah. ما شاء الله Cabdi Caydiid waa ninka aad arkaysaan waliba naafada guryaha loo dhisay doorkan. Cabdi Caydiid baaba ugu roon inta kale barada ku wada siqdaa wad arki doontaan. nin gacmaha go'an labada indhoodna labada gacmoodna go'an mooyaane wax talaabsan iyo kuma jiraan. ururka yaga Ilaahay kor ha ka yeelo. Ilaahay adduun aakhiro ha barakeeyo. tawfiiqna Allah siiyo ururka Hoodale ilaa 10 sano ayuu khayriga waday. waxa wanaagsan inay dadka kale kaga daydaan qurba joogta ah ee ururada samaystay inay dadka docofada ah ay aad iyo aad ugu naxariistaan. Hoodale ku daydaan baan ku guubaabinay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. bismillaahir raxmaanir raxiim. waxaan imikana joognaa gurigii loo dhisay Cabdi Casiis Axmed ninka aad arki doontaan ee naafada ah ee waliba caruurtana qaar ka xanuunsanayaan maskaxiyan eed arki doontaan. inanta ay quruxda badan ee ag joogta wax ka xanuunsanaysa iyadana wax ka maskaxiyan. ururka Hoodale ee khayriga ah taqwada badan ee had iyo jeer docofada caawiya ayaa imika waxaan marnaa gurigii labaad. kuwa kale way noo hareen maanta inaanan ka wada gaarin baa insha Allah laga yaabaa. nicmooyinkaas baynu Ilaahay maaragtay aynu amaahsanay docofadeennana ku caawinaa waana inoo caado. waxaan codsanayaa in dadka kale qurba joogta lagu magacaabaa way taakula way soo diraan laakiin ruuxba ruuxu ka sii daran yahay in ay ku daydaan ururka Hoodale khayriga ah oo dadka ugu liita ay wax u qabtaan ama dadka waalwaalan ama dadka indhaha ama dadka cagaha iyo gacmaha yacni waxa weeyaan gacmo halkay gaadhay xoqataaye. annagu haddaan nahay ururka Hoodale cidba cidda ka sii daciifsan tahay docofada daciifkeedaan isku dayn inaan wax u qabanno insha Allah biidmillaah. ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo. bismillaahir raxmaanir raxiim. horta halka waxaan ka salaamayaa dumarkayga sharafta badan ee helo khayrka ee ururka Hoodale kuwaas oo mar walba u heelan danyarta iyo naafada dadka jilicsan oo reerahoodii u ilaabay oo anagu sidaan u dhinac taagan markasta oo waxaan ku hoosay dadka naafada ee jilicsan wax ugu qaban lahaayeenay hanti iyo wax ay meelahoy ay galaan iyo haddii wax baahiyo gaar ah leeyihiin waxay wax ugu qaban lahaayeen inta u heelan. aad baan ugu ducaynaa Ilaahay haydiisi ballaariyo
ururkiina ilaahay awlaadaha idii barakeeyo halkaad ka soo saarteenna ilaahay wax khayr qabaha idinku bedelo muraadadiinana kolley waxba idinka xumaamayo unu dadka naafadaaba wad caawisaanbe muraadadiinana aad iyo aad allah idin fude cidda xaawo halkaa 24 saacadood noo taagan oo dadkii naafada ahaa siday qodaxda ugu guraysay ka u baahan ee ka dhabta ah ayay kasoo saartay kowdhe ilaa qaar baa meelay galaale wallaahi bilaahi intaasoo dhan ilaa ay ogaatay halkan galo inaan kira galo inaan waxaan ku wari dee masaariifta meelaha askariyeedo cabdow waxaan ku rin lahaan ka gungaadho waxba meel kula qaban maayo bay tiri intaasoo sannadood baan waxaan ku waray findhexda kaga guraysay ogaatay inaanan ilaahay dartii in arrimahaygu yihiin xawo iyaduna sidaa u ilaalinaysa xaqi bilaadanka oo sidaa u daryeelaysa aad oo fiicantahay ilaahay idin barkayo aad iyo aad baa idin salaamayaa wax khayr qabaa allah idinku bedelo kolley dee qof naafo oo dareemaysaan oo bilcamal oo dee carruur yar haysto oo qaar madarasada u dhigtaa iskuulka u dhigtaan weliba tu yar baa adiga xasuusanaysa taayarad aragtan markaa aan ugu awood kar waayey dhakhtar maskaxda halkaa nabar ba kaga yaala markaa dhakhtar xaggaa dee waddanka gudihiisa waxba laga qaban waayey oo dhakhtar dibadda laygu yidhi markaa dee ilaahun baan u daayay markaan awood aan waayey marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan idinka filiya idinka rajeynayaa inaynu insha allah waxna ila qaban doontaan horena waa idinla qabateen imkan adiga warhay doontaan ilahay idinkii aadna waa idin salaamay aad baa idinku soo ducaynaya aad baad mahadsantihin cabdilcasiis axmed waa ninka aad arkaysaan itaalkaa leh nin baa laga sheegay aan bukee haddaan kaar la ahay isagu itaalkaa ha lahaado xoogna saaha ka ahaado xoolana saaha ka ahaadee inantaa quruxda badan ee ag taagan ayaa xagga maskaxin oo idinka arkeen istaagayni kolba dhan u cararayso waxa weyn dee waa iska qadar ilaahay waxaan ka barya inuu ilaahay inantaana u shaafiyo isagaan risqi waasaca siiyo ururkaa khayriga ee hoodaalana ilaahay ka aqbalo taakulada ay dadka daciifka had iyo jeer la garab taagan yihiin ee daciifkooda aynu sii sahminayno waa runtiis cabdilcasiis axmed waanu dee lagama sheekayn kara dee midba mid kasii daran markaa ilaahay haynoo aqbalo ducadaana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ururka hoodaale waan ku faraxsanahay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaanu joognaa maanta gurigii 3aad baanu maraynaa kuwa badanna way noo hadheen waxaanu ka gaari karna insha allah gurigan halkan waxaa loo dhisay inan taa aad arki doontaan khadan ibraahim baa la yidhaahdaa xagga sare dee waa ruux caadi ahoo ka nool iyadu gacmaha mala'a laakiin labada lugood baa go-an labadii lugood ee laga soconaya ama laga tamarinayo ilahay qadarkiisa inantaa labada lugood baa go-an dadkaa naafada ah ee naafada darana bay ku jirtaa ehel iyo adduun iyo xoog midna ma laha sida kuwa kaleba marka ilaah waxaan ka barya inuu miisaanka xasanaadka inoo saaro ururka hoodaale khayriga ah waxa weeyaan waa inoo caada inaynu docofada caawino hadalkaa maanta oo dhan baan wada idinkuna waad ogtihiin ilahay waxaan ka baryayaa inuu awlaadda inoogu xiftiyo oo jannadii inagu geeyo oo dadka aynu la noolahay ilaahay inoogu sikhiro oo awlaadda ilaahay baariyiin raakiciin saajiciin ilaahay ka dhigo ilaahay inuu dariiqa mustaqiimka awlaaddeena ku hagaajiya mar walba saasay inoogu duceeyaan qoladaa naafada ah aynu taakulayna xagga carruurta ee xoogga saaray inoogu duceeyaan dadka aynu la noolahay in ilaahay inoo sikhiro ayay inoogu duceeyaan ilaahay ha noo aqbalo inantana waan u dhiibi doonaa insha allah waan idin salaamayaa ururkaygii hoodaale qaaliga ahaayo ilaahay sukee nabad keeno intaanu ka gaadhnana waanu soo duubayna haddii alla yidhaahdo biidnillaah bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa ururka hoodaale waan idiin soo ducaynayaa insha allahu tacaala ilaahay idin barakeeyo jannadana allah idinku bishaareeyo aqalka ay dhisteenna alla jannada ha idinka dhiso waan idiin ducaynayaa wax fiican baa ay qabateen oo ay tarteen waan idiin ducaynayaa insha allahu tacaala allah idin barakeeyo waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeyaan maasha allah khadan intaa ay afka ka leedahay in ka badan bay way ii sheegtay inay marwalba ducayso ilaahay ha inoo aqbalo ducada inta afka laga leeyahay inta uurka ayaa badan
acmaasha aynu samaynay ee wanaagsan aynu inaga inoo caadada noqotay ilaahay waxaan u malaynaya ururka hoodaale la mid ahoo docofada sidaa u raadiyaa horta ma jiro dadku wax way qabqabtaan laakiin dadkaa nooca aynu inagu caawino weli wax halkaa qooraansaday ma jiro ilaahay miisaanka xasanaadka ha inoo saaro cidooyin aad iyo aad baan idiin salaamay ilaahay sukeen nabad keeno aad baan ugu faraxsanahay inaan midhihii aynu beerannay ilaahay jannada ha inooga beero ilaahay baan waxaan ka baryay in ilaahay miisaanka xasanaadka inoo saaro inaad aragtana ku faraxdaan aad iyo aad baa beri baan culimada weydiiyey waxaan miyaana istus ahayn maxaa sheegidani waxay dhaheen maahe khayrkaa la yskaga daydaa bay yidhaahdeen raxmatullaahi wabarakaatu waxaanu joognaa maanta meelo kale fogfog baanu isu soo marnay waxaanu joognaa iminka gurigii afraad ayaanu iminka joognaa oo loo dhisay nin aad arki doontaanoo naafo ahoo wuxuu la-yahay labada gacmood way go-an yihiin labada indhoodna wuu la-yahay markaa dee haddii ay labada indhoodi fayow yihiin oo gacmuhuna uu la-yahay adduunyada dee si unbuu dhanac labadii waxa isugu darmaday labada indhoodna wuu la-yahay labada gacmoodna wuu la-yahay markaa ninkaa gurigaasaa loo dhisay horta mid kalean idiin sheegaya ururka yagii hoodaalow waxaanan idiin sheegin intaan saakoo dhan idinla hadlaayey 2017 guryihii aynu dhisnay qoladanaa ka nasiib badan oo ka gurya waaweyn guri walba berendaa loo sameeyey siligana waa lagu dhameeyey oo aad bay uga nasiib badan yihiin guryaha way ka waaweyn way ka qurux badan yihiin berendaa guri walba loo yeelay gudahaana dee idinka soo duubine siligina waa lagu dhameeyey dhan walba saasoo tahay haddana sanadkan iyo sanadkii hore 2017 wax waliba waa laban laab xaggii kharashka oo matalan sida xaqiiqda ah halkuu berigaa qoriga casi ka ahaan jiray $16 imika waa $30 weeyaan tolmise 14 buu waaga ahaa imika qoriga casi waa halkaas sibirkii saasoo kale kadaalig laba laab muxuu ahaa jinka wax walba laba laab shaqaalihii laba laab waxa laga yaabaa imika guri halkana inta lagu dhisay laba guri waaga dhisi lahayd haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin dhaqaalaheenu maanta wuu sareeyay ururkan hoodaale 6 biloodba mar buu wax qaban jiray masaakiinta wax u qaban jiray markii dambana sanad baa loo bedelay inuu sanadkii wax qabto dabeeta imika waxa isgaadhay 2 sanadood xanuunkii magaca karoonihii ayaa inoo fasix waa intaynu wadanka ama wax soo dirna ama nimaadna inaynu sameeyno dadna lacagteeni korodhay ayaa guryihiina wanaajisay oo waaweynaysiisay oo aad maaragtay halka dhaqaalihii isu keen gaadhay waliba hadaanu wax walba laba laab way nooga badan lahayd waxaan ku faraxsanahay inaynu ilaahay wax si amahsano oo dadka u daciifsan aynu ka shaqeynay wali aad baan ugu faraxsan idina way ugu faraxsan tihiin ilaahay awlaadaha hay noogu xifdiyo ilaahay jannada hay nagu geeyo ilaahay waxaynu ila niyoonay waalidiinteen nafteena ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay xasanaad miisaanka xasanaadka inoo saaro inankii loo dhisay gurigan loo dhisay cagaha isagu ka socda waan iga idin sheegay laakiin labada idhood waa dam labada gacmoodna waa gam marka dee wakaas kuwa kala noo haray imika guriga afraad baan maanta marayna dhulka meesha kala fog aad iyo aad baan idin salaamaya waan ku faraxsanahay ilaahay na xiftiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah ninka naafada ah Khaliil Axmed Cumar Quule ee gurigan loo dhisay aad arkaysiin waxaan in labada gacmood go'aan indhahana labada indhoodna waxba ka arkayn saad arkaysiin ururkan hoodaale waa aad baan ugu mahadnaqayaa xaawo loo soo wakiishay marka markii hore aanan hantida lahayn saddex xaas baan lahaa saddex carruur aan lahaa markii aan meel geliyaan waayey dee awood kalena aanu waayey wayga tuto reerkooga bay iska tagtay imika insha allah waxaan ku rajoonayaa kol haddii guriga hantida lay dhisay inaan reerkii soo noqdo oo dee nin hantila baan ahay alxamdulilah rabbil caalamiin idinkana aad baan idinku mahadnaqayaa waan idin soo ducaynayaa inuu ilaahay sidaad noogu dhistaan hantida wanaagsan ilaahay jannada idinka dhiso fooq iyo meelo wanaagsan oo ilaahay idinku naxariisto ما شاء الله خليل وحو إنه شيء إنه reerkii ay hanti la'aan iyo hayn la'aan uga tageen markaa bal ruuxa hadduu horta hanti leeyahay wuxuunba ku hoos cunaa
islaam baa ber waxay tidhi hanti kuma sheegto oo waa waxa u kar badan walee lagu haag handoodkii wuxuu la dhigay marka waxa weeyaan qofku hadduu bara leeyahay si uunba ilaahay laakiin haddaanu baraba lahayn meel alle meel istaagana aanu gidaaradaas ay u simantay oo ay tahay sidii ninkii laga yidhi nimaan hoy lahayn habeenna ogale hargeysa maxay ku haysaa sidii kii la yidhi oo kale bannaan cidlaa qofku dhulkaasi u masoogo dee reer la joogi maayo marka alxamdulilah maanta hantidaa quruxda badan gurigaa weyn gurigaasi waa 2 qolo waaweyn iyo berendihii oo weyn iyo maasha allah gurigaa dhan weeyaane dhan walba ka dheeli tiraan marka ilaahay miisaanka xasanaadka haynoo saaro ururka hoodaale sidaa iyo nabadgeliyo waxaanu ka gaari karna maanta waanu wadaynaa waxaanu ka gaari kari weynana insha allah mar kale haddii alla yidhaahdo bismillaahi raxmaani raxiim haddana waxaanu joognaa gurigii 5aad baanu joognaa gurigan waxaa loo dhisay inan la yidhaha ikraan maxamed aadam ood arki doontaan inantaasoo naafa ah oo ka mida dadka aan xooggana lahayn xoolahana lahayn ehel wax ku dhaamoo taageerana aan lahayn ayaa gurigan loo dhisay ilaahay mahadii ururka hoodaale dee waynu is ognahayoo sidaad sadaqada u bixisaan iyo sidaad docofada ugu dheganugushihiin ilaahayna wuu idin ogyahay dadkuna way idin ogyihiin duco badanna waa laynoo soo kiishaa ducaduna ta afka laga idhaa ma wada waa caloosha in hadalkaa waan ku noqnoqday marar horena waan idhi dadka waxaan farayaa dadka meelaha jooga ee dalkeena wax ku dhaamay la tuhmaayo inkastoo dabadan la mooday waxba laguma hayo laakiin maqaalufaa lagu hayaaye wadanku laakiin ismaba oge anigu waxaan odhan lahaa dadkan yidhaahda wax waaweyn baanu ama wax noo gaara qabsanaynaa ama caynkaasi anigu waxaan odhan lahaa dadku si u kala daciifsan yihiin ha loogu kala fiirsado way jiraan ururo badan oo wax soo tara wadanka dadka jooga way jiraan laakiin faqorada fiqiirkeeda maxay ahayday ka naafada ah ka sii daran mid baa naafa ahoo soconaya oo shaqaysan karaya waad maqlaysay ninkii lahaa aad bay noo itixaantay edda waxa weeyaan alxamdulilah isku soo wada duub ururka hoodaale ilaahay baa mahadle waanu mahadnaqayaa ilaahay jannada waa akhdar baa la yidhi guryo ahaa ilaahay jannada ha inooga dhiso waxaan ku celiyoon odhanayaan iminkana ku celinayaa qoladii aynu 2017 guryaha u dhisnay qoladana ka nasiib badan way ka guryo waaweyn yihiin way ka habaysan yihiin kolley iyo kolley dee gacan waliba meesha gaadhe xoqataaye aad bay uga nasiib badan uga guryo waaweyn yihiin oo uga habaysan yihiin waxaa laga yaabaa guri imika la dhisay sanadkan oo naafada loo dhisay 2 guri oo berigii hore aynu dhisnay inuu la qiimo yahay ayaa laga yaabaa taasina alxamdulilah waxay ku timid dadaalkeenna iyo sadaqa bixinteenna iyo ogaalkeenna alxamdulilah rabbil caalamiin ayay ku timid ilaahay haynoo siyaade tawfiiqdan allah hayna waafajiyo iyo waxay ku timid iyadoo doorkan lacagteeni dee isgaadhayo inoo darartay aad iyo aad baan idiin salaamayaa inanta naafada ah baan iminka idin tusi doonaa haddii alla idmo wasalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahad leh dadka gurigan ii soo dhisay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waanu mahadnaqayaa anigoo itaalkaa leh ilaahay ii soo diray ayaa alxamdulilaaya edaday xaawo cabdi guuleed ayaan ururka hoodaale ka mid ah ayaan u mahadnaqayaa maasha allah waan u mahadnaqayaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa ismahad iska leh dadka gurigan ii keenay ee ii soo dhisay anigoo itaalkaa leh anigoon waxba qabsan karayn alxamdulilah idinkana ilaahay halkaad ka soo saarteen wax barakalaha idiin soo dhigo had iyo jeer dadku waxay soo qaataan xaawo cabdigeydh kolkaa waxaan u sheegayaa anigu waxaan ahay ammaanahaye ururkan u weynahay alxamdulilah rabbilcaalamiin jaanis baanu hayaa ammaanada inaan u farsameeyo ilaahayna dee aan ilaahayna la kaashado uun weeyaan tusaalahaasina waxa weeye dadkii ku farxaan waxoodii halkuu u galay inay ku farxaan hablihii taqwada badnaaye sadaqadaa isku soo dardarsaday ilaahay ha ka abaalmariye markaa islaantan xaawo cabdigeydh iyadu
inta yaree dumarku bixiyaan unbay ku darsataa xoogana kolba ruuxii haleelaya ayaa wax qabta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay wuu ii hawl yareeyey waxa aad ka noqoto hogaamiye daacada saasaa ilaah hawl yaraynayaa weli bartankaanu kaga jirnaa weliba fari kama qodna intii iminka dhammayd ee diyaarka ahayd weliba qaar aanaan gaadhayn baa jira oo magaalada daabadeeda oo tiifiyadii ay ka subxaanalaysteenba inay tagaan halkaa iyo dadkii dhisayaba markaa insha allah waynu isu iman doonaa inantaa waa taa aad arkaysaan xaalkeeda xoog ma leh oo xoola ma leh oo xila ma leh oo awlaad ma leh oo ehel wax ku dhaama ma leh dadka sidaasoo kale ah waa dadkaynu inagu isu kaashana inaynu wax u qabanno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay ha inagu xifdiyo iminkana waxaanu joognaa guri loo dhisay gabadh la yidhaha hinda muumin oo iyadu sariirta dusheeda in loogu taga mooyaane mana gurguuran karta mana istaagi karto dadka kale waabay soo gurguuranayeen qaara weydinkii dee ararkaye waa qofkii ugu liitay weeyaan xagga naafanimada sariirtunbaa loogu dultagaa biidnillaah dee wax walba waa qadar ilaahay gurigaasaa loo dhisay idinkaa arki doona itaalkeeda haddii alla yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu guryaha jannada waa akhtar baa laleeyahay guryaha jannada akhtara ilaahay inuu inooga dhiso guryihii waa naga akhtarka wada marinay waayo maalintii hore ee gurigii wajaale ayaa habla yidhaahdeen dee akhtarkaa ka wada dhiga jannada waa akhtare anana dabadaan u qabanay maadaama jeebkeenu buuraa sanadkan maasha allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu miisaanka xasanaadka inoo saaro inuu inoogu daro inuu awlaadda inoogu xifdiyo allah subxaanahu watacaala inuu awlaadda inoogu xifdiyo inuu sadaqada inaga aqbalo inuu ilaahay inaga inagu ilaaliyo inuu ilaahay addoomihiisa inoo sakhiro dadka aynu dhex joogno aynu ku dhex noolahay inuu ilaahay wanaagooda ina tuso xumaantoodana inaga qariyo inagana wanaaggeena tuso xumaanteenna ka qariyaan ilaahay ka baryayaa waxaa ilaahay ka baryayaa sadaqadaasi halkay buuxiso waa taqaanaan halkaynu ku hagaajinayna waad arkaysaan ilaahay inoogu hagaajiyey ilaahay isagaa sahanka iskale allah waxaan ka baryayaa allaha raxmaana waxaan ka baryayaa sida aynu docofada ugu naxariisanin allah inoogu naxariista inagana awlaadeenna iyo inaga iyo dhammaanteen ilaahay inuu addoommaha aynu la noolahay sharkooda iyo shar kaleba inaga kaafiyo ilahay waxaan ka baryayaa inuu inooga xifdiyo awlaadda saasaan ilahay inooga baryayaa inuu risqiga inoogu waasiciyo sadaqada ilahay saasaan ka baryayaa inuu jannada inagu geeyo qofna wuxuu ula niyooday inuu ilaahay ku siiyo ayaan ilaahay ka baryayaa dooyin waan idin salaamayaa waynu ismeen biidnillaah hawlana weliba way sii dambaysaa ciyaari waa gelin dambe waan idin salaamayaa iminkana inanta ayaanu gudaha ugu gelaynaa haddii alla idmo bismillaahi raxmaani raxiim anigu hinda muumin cumara oo dayacan ayaa urka hawda la yidhaha ii soo diray jiinkadaas ayay dhiseen alxamdulilah arbaan ku lex waan u duciyey urkaa wallaah iyadu halkaasaa ilaahay dhigay waxay ii sheegtay in 16 sannadood sidaa ahayd bay ii sheegtay markaan waraystay ilaahay qadarkiisa inagu wax kale dee risqigana allaa bixiya way dayacnayd cid wax ku dhaanta ma haysato iyadoo idinka arkay waa nafii ku jirta uun markaa waxa weye waxay ii sheegtay inay halkaa 16 sano taalay waa qadar allah iyadoo yar baa la helay waxaan ilaahay ka baryay inuu miisaanka xasanaadka ilaahay inoo saaro hoyga aynu u dhisnay dee dayacaadii way kaga raysanaysaayoo hadday mar hoy heshay risqigana waxay cuntana waayi maysa halka awalba ilaahay ka siinin buu ilaahay ka siinayaa markaa waxaan ilaahay ka baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ilaahay inoo saaro saasaan ilaahay ka baryayaa iyadana ilaahay uu sidaasi dhaanta ugu bedela laba daarood tii u roon ayaan ilaahay ka baryayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ururka hoodaale waxa weeyaan waxaasuu shaqaystaa oo ilaahay ku hagaajiyey ducaduna habeen iyo maalin waa laynoo wada ilaahay inagama fatahiyo maba fataadee ilaahay haynagu dejiyo haynagu geeyo meel wanaagsan adduunya aakhira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu